xogayaha guud ee xisbiga macaaridka ah ee wadani Maxamed Cabdilaahi Urcade oo warbaahinta la hadlay maanta ayaa waxa uu sheegay isla markaana uu ku eedeeyay gudoomiyaha xisbiga macaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro inuu ka dalbaday inuu ku wareejiyo xogayaha guud mas'uul ka tirsan xisbigaasi balse dalabka gudoomiyaha ka yimi waxa uu sheegay xogayuhu inuu ka diiday kuna wareejinayo xogayaha guud ku xigeenkiisa xogayaha ayaa waxa uu ugu baaqay gudoomiyaha xisbiga macaaridka ah ee wadani inuu ku wareejiyo gudoomiyaha xisbiga Cabdulqaadir Jirde oo hore loogu insixiyay shirweyne in lagu wareejin doono xisbigaasi xogayaha guud ee xisbiga macaaridka ee wadani Maxamed Cabdilaahi Urcade oo isagu arimahani ka hadlaya waxa kamid ah hadaladiisi waxa ogeeyay shalay ma darato waxaan ku dhinay mudadii baan dib u dhignay sida kulmiye umana ku dhisan mudada anagu daan nahay aniga iyo daan gudoomiyaha madaxda kala xisbiga nahay waxaan jecel lahay oo aniga gudoomiyaha isku raacnay in mudada sanadkii aanu kordhinay aniga iyo gudoomiyuhu aanu xilalkan hayno aanu ku wareejino cidii xaq u leh xisbigu xaq u siiyay oo ah Cabdulqaadir Jirde in lagu wareejiyo gudoomiyuhu ku wareejiyo halkaas sano gudoomiyaha xisbiga oo hore loogu ballan qaaday kulihii dhexe lagu ansixiyay nin qiimo leh runtii aan isleeyahay xisbiga sanadka wax badan buu ka bedelayaa waan ugu talagalay waxa kale oo aan doonaynaa in la sameeyo shirweyne ka duwan shirweynayaashii hore oo dadku si furan ay ugu tartamaan oo dadka xisbiga ku jira qof waliba uu wixii uu doonayo uu tartan ku helo waxaanu runtii isku khilaafnay wax ka dhigaya waxa weeye runtii markaan idin sheegana aanu arkaa anigu sharci darro sharciga xisbiga khilaafsan gudoomiyuhu wuxuu soo jeediyay inuu ku wareejiyo si ku meel gaara nin la yiraahdo Khadir Guuleed oo aan xisbiga meel ka soo gelin wax xisbiga uu ku leeyahay anigu aanan ogeyn anigu xogayihii guud ayadoo uu joogo xogayihii ku xigeenkii xisbiga oo muddo dheer la soo shaqeeyay hawl badan soo qabtay nin mas'uula Jamaal nin ahludiina nin xilkaayo ka weyn baqaadi karaa sabab loo dhaafiyaan anigu arkayn inay jirto waxaan u arkaa in sharciga dal ka soo horjeedo xisbiga wadani xisbiguna wuxuu xisbi ku yahay waa sharciga oo la ixtiraamo haddii sharciga la isla dhaafo nin waliba halka doon u ka dhacayaa laakiin waxa weeye in sharciga iyo nidaamka la raaco shirweyne la gelayaa shirweynaha wuxuu doonayaa inuu qaabku doonayo dibadda uga hago oo uu noqdo shaar isagu uu leeyahay oo uu isku sarjaro taasina to aanu aqbalayno maaha waxaanu jecelahay in ciddaa marka horeba uu gudoomiyuhu iyo xisbigu uu keenay anigu mida jeebada ku sitaanayo iman midu gudoomiyuhu jeebada ku sitaanayo iman ha yimaado mid xisbigu keenay hoggaanka sare xisbiga عبد الرشيد عبد الوهاب حسين Universal TV Hargeysa